السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبada kusoo dhawaada channelka Dal Xamidiya. Haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar gambalaalkana furase ay ku soo gaaraan. Halkan maantay waxaan ku soo gudbinayaa 5 qodob, 5 talo oo ku sahlay akhriska. Akhrisku waa qayb ka mid ah nolosha qofka bini'aadamkana uusan noolaan karin la'aantiis, uusan qiimo yeelanayn. Akhriska waxaa lagu tiriyaa xirfadaha ugu muhiimsan ee qofku uu barto. Waxaynu ognahay aayadihii ugu horeeyay ee ku soo degay nabigeena sallallahu alayhi wasallam inay ahaayeen اقرأ باسم ربك الذي خلق. taasina waxay ku tusinaysaa muhiimadda uu akhrisku leeyahay. Nabiga waxa uu yiri akhri magaca Rabbiga kaasi oo ka abuuray. Akhri Rabbiga ka abuuray magaciisa. Marka muhiimadda akhrisku leeyahay way ku tusinaysaa uma aysan soo degin Quraanka ayada ka hadlaya tawxiidka iyo caqiidada. Waayo dadku marka ay cilmiga akhriyaan waxay hubaal ah inay si wanaagsan u cibaadeysanayaan oo tawxiidka iyo cibaadada baranayaan, Ilaahayna si wanaagsan u caabudayaan. Akhriska waxaa la yiraahdaa waxa uu kobciyaa garaadka qofka, habka uu fikirayo. waayo mar walba oo aad wax badan akhrido waxaad helaysaa xog iyo arrimo cusub oo ku kordhaya, waxaadna u koraysaa garaad ahaan iyo caqli ahaanba. Fikir inta aadan sheekaysan, akhri inta aadan fikirin. Akhrisku waxa uu bedelaa qofka fikirkiisa iyo garaadkiisa, waxaana culimada caafimaadku sheegaan inuu akhrisku yahay dawo kana yahay xanuunada qaarkood. Qofka wax akhriya waa qof muddo dheer nool oo kale, wax badan og. Culimada taariikhyahanada ah sida ay sheegeen, sida ninka la yiraahdo George R.R. Martin, qofka wax akhriya waxa uu la mid yahay qof 1000 jeer nool ka hor inta uusan dhiman, halka qofka aan wax aqoonina uu dhintay isagoo nool. Haddaba waxaynu halkan ku soo gudbinaynaa talooyin dhowr ah oo qofka u sahlaya inuu si fudud wax u akhriyo haddii sida ay yihiin aad u raacdid. Qodobka koowaad, ujeeddo cad. Sad goor soo inaad leedahay ujeeddo cad qofku waa inuu leeyahay. Shaqo walba aad qabanaysid haddii aad leedahay ujeeddo cad, waa hubaal inaad guuleysanaysid. Ujeeddada haba raagto haddii ay doonto. Qodobka labaad, xoog saar. Xoog waa inaad saartid. waa inaad xooga saartid waxaad akhrinaysid una fiirsatid si ay miro dhal u ahaato, aadoo kolba meel kale aadan isku qaadqaadin adiga aan ka bogan shaqadaad haysay. Markaad ka dhammaatid aad mid kale ku dartid, balse aadan kugu noqon caqabad aad wax awooddaada ka baxsan aan samayn. Qof waa inuu xooga saaro waxa uu awoodo oo ku talagalo. Qodobka saddexaad, muhiimadda maadada aad u akhrinaysid. Importance of the read subject. waa inay ku caddahay muhiimadda aad u akhrinaysid maadadatan. waxaad akhrinaysaa waxay ku leeyihiin saameyn aad u weyn. inaad ka fikirtid waxaad akhrinayso
oo aad marka horeba xulatid maadada aad kugu habboon oo aad xiisaynayso. haddii aad arday tahay waa inaad xiisaynaysid maadada aad jeceshahay, hadday biology tahay, hadday maths tahay, hadday chemistry tahay. maadada aad xiisaysid oo ardayda uga duwan tahay waa inaad xoogga saartid, iyadana aad ku dadaashid, kadibna tallaabo u qaadid maadada ku xigta jadwalna degsatid. qodobka afraad, diyaar garow. be ready waa inaad tahay qof diyaar ah. haddii aad damacdo inaad maantay meel aado aad u baxdo, waxaad samaynaysaa waa diyaar garow iyo ishagaajin, kadib ayaad baxaysaa. qofku marka uu shaqo qabanayo waxa ugu horeeya waa diyaar garow ku habboon, sidaa awgeed inaad u diyaar garowdid akhriska waqtina ku bixisid. qodobka shanaad waxa weeye time go'an, limit time waa inaad siisid. markaad waqti kala duwan wax akhrido iyo marka aad waqti go'an wax akhrinayso way kala duwan yihiin, shaqana iskuma leh. marka aad samaysatid waqti go'an oo aad akhris keliya ugu talagasho, waxaad helaysaa faa'iido weyn, muddo yarna waad ku dareemaysaa. haddii aad qodobadan kuu sheegay say tahay u raacdid, waxaa hubaal ah inaad noqon doontid akhrista wanaagsan. aniga waa walaalkiin Maxamed Mursal, intaasna kasoo gabagabeynayaa barnaamijkaygii maantay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.